marka ninka la yiraahdo Qays ibn Abbad baa wuxuu leeyahay kuntu waxaan ahaa buu leeyahay mid fadhiyay xalaqad cilmi ah masjidka nabi alayhi salatu wasalaam xalaqa la fadhiyo xalaqa waa taqaanaano markuu sheekha kitaabka akhrinayo ee uu saan u haysto ardayda saasna ugu geedaaman yihiin ayaa waxa la yiraahdaa xalaqa marka xalaqa waxaan ka kuntu jaalisan fi xalaqatin min xalaqat alilmi xalaqan fadhiyay oo xalaqadaha cilmiga waliba xalaqaadka suulayaal dadka uu ku boorinaya meelaha kitaabka ilaahay iyo ahadiisa nabiga iyo khayrka lagu hayo malaa'ikta ilaahay baa imaado malaa'ikta ilaahay baa imaado ninka kan maarata xulay anoo fadhiyo xalaqa khayra ee ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo cilmiga imaaratay nabiga la ka tagay dhaxalkii nabiga anigoo dadka ka sheekeynay aan ku dhex jiro ba wuxuu leeyahay waxaan meesha ka dhex fadhiyay oday hadal macaan oday aad u hadal macaan oo qalbiga uu ku raaxaysanayo waliba sheekadiisu ay ka dhex duxayso falamma qaama odaygii markuu kacay qaal qowm dadkii meesha fadhiya waxay dhaheen man sarrahu an yanzura ila rajul min ahli jannati falyanzur ila hada qofkii jecel inuu arko qofkii jecel inuu arko nin ahlu janna ah oo adduunka guudkiisa saaran falyanzur ila hada ninka ha fiiriyo marka Qays ibn Abbad wuxuu leeyahay faqultu waxaan ku yiri man hada wal qofkaas waa kee faqaalu wuxuu dhaheen ninkaas waa Abdullah ibn Salam odagan faqultu fi nafsi naftayda waxaan isiri yiri والله إلهي بان كدارتي لأتبعنه وان راعي لأن صحابته يدك وناكسنا وحي هايين مركي اللي قف كان وأهل الجنة ويدبد يدقن جرين ويراعي جرين سيعي كان قف كان على عسو أنا مارتي نبينا هين رسول الله هين الدون كان صارا جنة وتقرن سانو على نسرعة الغالي وجنة وقالي وكم متيستقف كان جنة وأنا مد مارت قالي أنا قف والمالك أن شنجر إلهي وسجودنه إنه إله جنة نقل إله جنة الله نقل قدن مالك مارت لقتيه لقاويه الله نقدر كو جنة إلهي تبارك وتعالى وقليه اللهم آمين مركب ولا ليال صحابي أن وحن كودا أن قيس ابن عباد بوحوا ليه قام بان وحن كو قاري وعد كمرين إلى نكا كهرين فانطلق ودقاجي حتى كان إلا وصعود مقاله كسي بحيو ويقول سكي سو قاري أنا واد وصعد أبو ليه عكتا أقوها إياه مر على مركو قولي سو قاري يا أنا سو قاري استاغي فاستأذنت عليه وحن كإذا دلبضي قولي وسو قالي وإذا بان كدلبضي فآذن لي ويدمي فقال حويري ما حاجتك يا ابن أخي ويلكي ولالك أما ويلكي يو ويلكي أديرك وأهيو أديرك علي محاهد منين وجهي كعسب وي قولي لا تقف استاغي محارة تابع لذا أدر محاضر بانتو كويري فقلت له وحان كويري بالأضيقي سمعت وحان مغلي القوم ذاتك ماشي فدي سمعت القوم ذاتك وحان كم مغلي يقولون عنك أيهو كاهضيو مركات صدق قاجسي أو وحيد هايين نينكاس قفكي جعل إنو أركو قف إيرو جناه أضيقا ساركو أنا أقول وكاسو دبا دقاجي ما تدبا كنت بس سعودي إلا أن قرقا كاسو دبا قالي وحكا لما أباهني بويري وحان دون يا بوري سانو أقادو كيف عرف الناس أنك من الجنة dadka say ku ogaadeen inaad tahay qof ehlu janno kamid ah su'aasha isweydiinay waxay tahay odayga kan soo ku noqday ehlu janna marka taasaan baad goob ugu jiraaye balaadar ii waran buu yiri odayga baa hadalka qaatay wuxuu yiri faqala wuxuu yiri Allahu a'lam bi ahli aljannati ya bunayya Allahu a'lam ilaahu baa garanayo yiri dadka ehlu jannada wiilkaygiyo ehlu janna inaan ahay iyo qofka ehlu jannada ilaahay baa naga yaqaan taas waxa ku soo tawaaduca iyo inuu san ahayn qof inuu ehlu janna yahay calaamad tan ka bilaabanaysa laana wuxuu leeyahay ilaahay baa naga yaqaan qofka ehlu janna yiri فقلت حنقول لي قيس بهاليو نعم ورنتا إلهي بقرنيو ولكن لا بد لما قالوا من سبب ولكن لا بد لما قالوه من سبب هذا الكي يكون دهين ذاتك أنا أقول صونا هواي ميل خير لو خير ما خير بدوي إسكميس إن ننكاس أهل الجنة أديروا قاعد يشك مركز يقول هيا وكل شيء بلدقيس يقول فقال أضيب هذا الكقاتل حيري بينما أنا نائم ذات ليلة على عهد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه بينما أنا نائم وقتي أنا جيفي وقتي النبي عليه الصلاة والسلام هبين هذا كم إذا أنا جو جيفه ووقتي النبي محمد عليه الصلاة والسلام أي تهي أتاني رجل نبأيمي فقال لي نينك وحويري قم أنا هبين جيفه واسكهر دو ريان نبأيوي وحويري قم والاستاك فقمت والاستاغويري فأخذ بيدي نينك قعنته يقبته وسوكعي oo soo raaco fa ida ana bi dariiqin an shimali saan u socona wado waxay qabatay dhinac bidix fahamamtu waxaan hamiyay an asluka fiha ina wadadaas maro faqala li wuxuu yiri da'aha fa innaha laysat laka kasoo laabo wadadaas oo kasoo noqo oo ha marin oo ha aadin oo iska daa taasi wadadaadi ma ahe
فنظرت مركزا نعي كالفيريو فإذا أنا بطريق واضحة عن يميني إني كلو مدق بان إيجي مثل وحاجة قبنا يودك كلو وين أو واضح دي كلام موقته بلارنو وحو قرصون أنا كجرين وين أو إيجي قبنا سجعنت مدق فقال لي قفك إيوه وحي يري أسلوكها مدان مر أسلوكها تنمر وددان كسر اللي بديه مدان مدق راع فسلكتها وددي مدق بان قاضي سارؤها حتى أتيت إلا أن كؤمت روضة غناء بير وين بان كؤمت بليه أو وحو البؤ ودما يستريه غنيئة واسعة الأرجاء جيسه هذا جيس تو جيس أي آد لأن الدرف كاس إلا الدرف كاس مشرق يا مغرب أفر برجنة أي كوبا سنتها وساد أفر جيسو بلارن أو بيرساس وينو هذانا وحول دحيا لان هذانا دربيو وين أما جيس إلا يكجيس أي ساو واسع سنتان أركويري كثيرة الخضرة إن خضار فربضا أو نوع والبلهنا أي كوبا انتهي رائعة النضرة أركتيد دون أي كديق السو مركز أركتيد أنت وعنبيه أنت وبابايجي أنت وموسكي أنت وحول أو بيرلوشيجو أو خضار نوعها تبع وكم مقتابل إندي هنا حقيقة وارون مركز سوقش البير وذا أدجويسه أو عندها أورون أو وذا عارفة يسقفك وكل حساق مياوي بيرتي مركز عندها مرة يوري أو هرتيد يتاجنت هاي وأن كويمت وفي وسطها بيرتاس نحن وحكدح مدن عمودا تير باكو دح مدن ليه تير كاسو من حديد كسميسن بر تير أصل تير دير با دح يالو أو تير كاس كدح قطما بيرتا دحديدا كان سميسن تير كاس أصل كيسو يهي بر أصله في الأرض أصل كيسو دولكو قطما دولكو قضيه ونهايته في السماء ماشي كل ما أنا ينوى السماء حتى نسيج العيو سونيك وسعودي بير بكويمي بير وحو البقيالان خضار هدي أهان لين إندو هدي أهان لين بيرتا مركا دحديدا وحا كو يالا تير كا بيرتا كو يالو وديريا درفكيسا كوبات ugu horeeya ama fiida hore ilaa ay samada tagaysa fiidiisa hoose dhulka u qodan tahay oo dhulka asalkiisa dhulka ka qodan yahay وفي أعلاه وحوليه تير كاس دير برتا كسمش ماشي ugu sareyso waxa ka muuqatay xalqatun min dhahab xalqada waxa leeyahay soo sheegno waxaan sa u wareegsan way meel wax sa u wareegsan ama maarata jijinta gabdhaha ay xirtaan oo kale ama saacad wax saas oo kale ama garaangar waxa tiraahid wax sa u wareegsan ayaa qaybta ugu sareyso saas ugu geedaaman oo min dhahaba meesha ugu sareyso saas u kooban tahay intaas oo waa wada dahab buu yiri فقال لي نينكي إيودي أما قفكي إيودا حويري ارقى عليه فول بويري جيت كان دير أما أو مارتي برتان دير فول بويري فقلت عن كل لا أستطيع وراني ما أوده فجاءني وصيف وحقيمد بالله نشق على وبرتي نحتاجنا فرفعني كرب إيقاظي فرقيت حتى صرت في أعلى العمود كربك إيقاظي إلا يقرأ السعودي أنا مارت كربان أفولي إلا أن بكجاري فيديو أقول سريسي ما عرفت تيركي وأخذته وحن قبسوليها بالحلقة جرانجرتي أما جنتي ساس كورك سنين بان نبكو يريد لو ده جعمت يعني ساقو قبصدي واتهي وبقيت متعلقا بها حتى أصبحت ساسا اسكيس ولا الذين إلا واقعي دلاعي فلما كانت الغداة لكن مركو واقعي قد دلاعي وما نسمعه فلما كانت الغداة مركو واقع بريي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أمت وقصصت عليه رؤياي وحن أغشى كوضي قصدي الرؤيا دي وحكا أمارتين كلا قبصدي فقال نبي مركا يفسر رؤيا دي فقال رسولك عليه الصلاة والسلام كو أما الطريق التي رأيتها أما الطريق التي رأيتها عن شمالك وددي أتكارك إن عبده فهي طريق أصحاب الشمال من أهل النار والعياذ بالله تاسوحيه هيد وددي دتك أهل الشمال إيه ما رتي وددك عنت بده وأهل الشمال وي دتك قيامها مركز لا تجو أو دتك قارن وحلقة سنة أصحاب اليمين أصحاب الشمال وي أصحاب الشمال كتابك حلقة سنة بشمالهم
kuwa kalena biyamiinihi ilahu waa nagu daro kuwa asxaabu lyamiin oo kitaabka midigta laga siiyo marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi dadkii gacanta bidix waddada aad ku aragta gacantaada bidix waxay ahayd wadda dadka ehlunaarka ay galaan ama dariiqu ama waddadii kale ee kaa qabanaysa gacantaada midig miya hee fahiya طariiqu asxaabi اlyamiini min ahli اljanna waa waddadii dadka ahlulyamiinka ahaa ee ahlu jannada wey jannaduna maxaa ku jiro maa laa caynun ra'at maxaa yaallo maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khaطra calى qalbi bashar ya maa laa caynun ra'at waxays il arag il aysan weligeed arag haye maa laa caynun ra'at walaa udunun dhegna aysan weligeed maqal walaa khaطra calى qalbi bashar qalbi ibni aadanna aan marnaba kusoo dhicin nabigena alayhi الsalaatu wasalam waa asaga lahaa haddaad u baahanteen akhriya ya في سورة السجدة أيدي كجرت مارت فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء ما كان أيدي مارت ديريت اتجافها جنوبهم كسر مارت كحكتي مركا جنة ولا ليال لقوا ما حاكوض لقوا ما سحرود لقوا ما مارت جبوب ضد كل واس كدا صدق ناس ده جروي وقف كست نعم صدق ناس أحسن جروي ضد كل فرحسينهن حاسد مجرو قفك وحو أبها هي مركي ولا صور كيريا hadduu rabo alla ilahay maanta inuu maaragta alla ilahay uu yidhaahdo warno maanta waxaan u baahanahay inaan hilib yaroo duban hilibkiioo dubanoo hor yaallo ilmo qurqurux badan oo maaragtay ku adeegayo dadku sariir bay ku dangiigsan yihiin qofka asagoo jannada ku jira warniyahow waagaan adduunyada joognay nin la yidhaahda hebel baan aqaanay jannadana kuma arka xaw ka dhacay wuu soo baxayaa ninkii wuxuu arkayaa dhex yaallo maarta dhex jiifo markaasuu qaarkood maalinta qiyaamaha waa loo ogolaya shafaaca loo ogolanaya ilahu hebel ka soo saar marka ilaahay subxaanahu watacaala haynaga yeer waa ahlu jannada hanaga dhigo walaalayaal nabiga wuu sii sharaxay wuxuu yidhi wa ama arawdatu amaa beerti miyaa ku dhex saaqday qudaarteeda iyo aragtiyada ay ku deeqday fa hiya alislaam beertaas aad arkaysid waa islaamka wey nacam leanna islaamku waa beer walaalayaal waa beer qurux badan wax buu dhalayaa oo khayr buu dhalayaa oo wanaag buu dhalayaa beertu waxaa ka soo baxo moosku waxaan ka wadaa markii maanta asabuul hal xabo miraad ku ridaysaa wuxuu sii dhalayaa khayraad ya sabcat maaragtay ilaa adcaaf ilahay ku maarata khayrkaasa inuu weliba ilahay kuwa laban laga yaabaa marka wuxuu yidhi beerta aad ka dhex gashay fa hiya alislaamu waa islaamka wa ama alcumuud amaa tiirki miya oo fii wasadihaa beerta dhexdeeda ku yaalay fa huwa cumuud ddiin waa diinti wiil waa lafdhabarka diinta tan waxay ku taagan tahay weeyaano waxaa weeyaan islaamka iyo diintii labo wa ama alxalqa amaa garaangartii ama jijintii ama waxay masaacadda camal u wareegsanaa miya ee dahabka ee atada ugu dheganayd fahiya alcurwatu lwithqa waa xarigii ama maaratay madagii dheeraa ee adkaa ee ilaah uu ku sheegay alcurwatu lwithqa la infisaama laha ee aanan kala go' lahayn ee qofka hadduu marku dhego ilaha naga dhigay kuu ku dhegan oo ilaa qiyaami saaca saa anaka u dhegay ilaha nala soo saaree saasuu nebiga calayhi salaatu wasalam wuxuu yidhi xarigaasna waa islaamkii ood ku dhegtay buu yidhi walan tazaala mustamsikan biha xataa tamuut walan tazaala kama zuulaysid oo ka foqi maysid inaad ku dhegan tahay ilaa jeer ay geeridu kaga timaado waana midda noogala baahanya walaalayaal inuu qofka ku sugnaado diinta ilahi tabaaraka wa tacaala uu ahaado qof mustamsikan bidiinihi mid ku dhegan diintiisa xataa yamuut ilaa uu ka dhimanayo maanta maxaa nagu batay in qofkii uu maaragtay isbedbedelo oo ayaamaba maarata wax la soo baxo soomaaliya marka hore ma jirin christian ama soomaali gaalowday way nagu yarayd ama ceeb bayba ahayd in la arko soomaali christiana waa la baqayay laakiin maanta waa nagu bateen maanta waxaad arkaysaa weliba tvyaday fadhiyaan youtubeyaday fadhiyaan facebookyaday fadhiyaan bannaankay soo bandhigteen annaku ma dhahayna maxaad u gaalowdeen oo ayakaa diintan qaaliga ka tegey laakiin hal kelimaan leeyahay qofka diinta ilahay tabaaraka wa tacala ugu deeqay ee ka baxay xaqiiqatan waxaan leeyahay caqligaaga ma keeni waayo hadal xitaa ay dhihi jireen gaaladii inaa wajadnaa aabaan adigoo muslima weliba soomaali oo kaabiran can kaabir asalkaaga u ahaa inaad diinta ilahi tabaaraka wa tacala ka baxdid xaqiiqatan ayad ilahay wuxuu ku laha faman shaaa falyumin waman shaaa falyakfur laakin maxaa kuu dambe inaa actadna lilظaalimiina naaran axaata bihim suraadiquha sooma ahayn qofka marka inuu diintiisa ku dheganaado diintu nebigu wuxuu noo sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi inay soo mari doonto jeer uu qofka dhimbil naara uu gacanta uga haysto dhimbil naara waad garan kartaa cid hayn karta waa la tuuraya wey maanta way ku socotaa islaamka qofka inuu gabadhi waxaa laga yaaba inay ka xishooto xijaabkii wadaadki waxaa laga yaba inuu ka xishoodo garki inuu la baxo oo garki iyo sunnada ka dido waxaa laga yaabaa qofkii inuu shacaar islam uu ka cararo waxaa laga yaabaa in hadda kahor ii sheegan laga yaba in kuu celinaya mar kale nin baa hadda kahor maroccan bu ah maaragtay dad maaratay weliba meel la dhooban yahay ahayd assalaamu calaykum markaasaa laga wada aamusay
marka waxyaalahaas faraha badan dadkii xitaa assalaamu calaykum timaartay in dadka markaas uu qofkii uu ka xishoodo laga yaabaa ama waxa dhici karta qofka xitaa marka aad oo la yaabatan oo ku darsanaya wuxuu saaran yahay bas ama wuxuu saaran yahay tareen ama wuxuu saaran yahay baabuur dad ajaanib ah dhex fadhiyo markaas wuxuu leeyahay hindis wuu hindisoonaya meeshuu dhiga alxamdulilah ayuu leeyahay sorry laakiin ayaka waxay dhahan sorry soo maaha bal fiiri sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam buu ka hijrooday ee uu ka tegey sorry oo niman ay la baxeen ayuu asaga leeyahay sorry excuse me sorry haye nabigana muxuu yidhi war qofka markuu hindhisoodo hee ha dhaho alxamdulilah waxa ilaah waa wasaq ilahay kaa soo saara ilahay ku mahadi marka maanta halkaasay maraysa walaalayaal diinta inuu ku fara adeegno war diinta aanu ku dhimano maanta midda tan qofkii diintan ku dheganaado ilahay tabaaraka watacaala uu waafajiyo inuu ku dheganaado ilaa qiyaami saaca la wallahi alcadiim asagaa liibaanay wey asagaa liibaanay asaga wuxuu yahay qofkii badbaaday ama qofkii diintan ka tago aantaanba aakhare la gaarin diiq iyo ciriiri fara badan buu dareemayaa waxaana marag iyo markhaati ka ahay kuwa ka taga diintii maanta adduunka meel ay ku noolaadaan bay waayeen meel walba ciriir ku noqotay qofka islaamka ah ee muslimka ah ilahay tabaaraka watacaala diintan u doonay ee islaamnimada ilahay ugu deeqay waxa weeyaan raaxa ku nool yahay waxaa laga yaabaa saaka inuu soo kacay canjeero uu soo cunay soomaaliya iska jooga canjeero iyo saliid buu soo cunay waa farxaan waa faraxsan yahay kii saakay wax walba soo laqay caawa markuu seexanay waxaa laga yaabaa inuu kool qamra ku seexdo suu farxad u helo uu ama isku qaadsiiyo marka islaamkaas yaa naga badanna deeqo ilahay tabaaraka watacaala ha idin barakeeyo